Manchester City waxa ay gaartay guul taariikhi ah taas oo ka dhigan labadii kulan ee Premier League ugu horeysay in ay soo badisay. Waxa ay Afranka hal kaga adkaaday Ipswich taas oo si la yaab leh Manchester City ay ciyaarta ugu soo laabatay maadaama kulankan loogu horeeyay goosha. Ciyaarta 7 daqiiqo markii mareysay Ipswich waxa ay awood u yeelatay inay hoggaanka qabato kadibna 12 daqiiqo markii ay mareysay Haaland ayaa penalty helay kaas oo kooxda Manchester City u ansixiyay. Isla 14 daqiiqo markii ay mareysay Kevin De Bruyne ayaa gool kale ansixiyay taas oo ciyaarta ka dhigtay 2-1. 16 daqiiqo ciyaarta markii mareysay mar kale waxa dhaliyay Haaland oo ciyaarta wuxuu u bedelay 3-1. waxa ciyaartu socotaba dhamaadkii ciyaarta 88 markii ay mareysay mar kale Manchester City waxa gool u dhaliyay Haaland kaas oo ka dhigan Haaland season-kan cusub hat-trick-kiisa ugu horeeyay inuu dhaliyay. Hambalyo Manchester City waxay u soconaysaa 5 sano oo isku xigta inay Premier League ku guuleysato haddii aan sanadan laga qaban. hadda gool dhalinta waxa hogaaminaya Haaland kaas oo 4 gool maraya. dhammaantiin waa mahadsantihiin.